السلام هاي عليكم. عليكم السلام. Way su'aasha waa ku salaamay. وكا قدر Waxaan ku rajeynayaa caafimaad. إن شاء الله ولا العميل. Bulshada Soomaaliyeed oo badan baa ku daawanaysa fariinta tan oo gaari doonta insha Allah. صح Waana bulshada isugu jirta odayaal iyo maato iyo hooyooyin iyo shacab. صح Xaaladda kugu dhacday waa xaalad ku soo noqnoqota deegaankeena iyo gabdhaheennaba. صح Wax loo dulqaadan karana maaha. Marka baraarujin ay noqotaan rajeynaya iyo gabdhaha dambe oo soo socdana loo faa'iideeyo. Su'aasha koowaad aan ku weydiinayo walaashay Muqdisho hadda imisaad joogtay? صدح بري ولا 3 bari oo qoraad joogtay boos meesha tan la yiraahdo. Xaaladda caafimaad waa sidee? هذا حواء وفيعاني وعلى شهر ودعمه Haye. عافمت فينا دريبية. Ibtiladu waxay kaaga habsatay magaalada la yiraahdo Boosaaso. ها Haye. Bal adoo wax yar nooga faal bixinaya goobtii iyo xaaladda iyo sida ay wax u dhaceen. Ninku waxaan maqalnay inuu ahaa nin askari ah صح واحد oo ciidamada Puntland ah. صح Ciidamada waa ninku walaal. والله إذا ما قان أنا كوين وهاو ملا سحسن وهاو ملاين. Okay, magaciisa oo saddexan ma garanaysaa? أنا على الفواتح بوقانا Cabdiqaadir wax lagu daro ma garanaysaa? من كلامي. Laakiin nin waxa jiray magaciisa oo saddexan sheegay. واجرن هذا تدرس سدان قرنيتي يعني القاتل بسوقانا. Laakiin magaciisa oo saddexan waa magaca la sheegay meediyaha ku jira. ها Waa hubaal waa magaciisu waa ka. ها Xaalad caafimaad Boosaaso ma kugu suuroobi weyday oo adiga imika Muqdisho jooga bal ka falo adigu arrinka caafimaad ee halka Muqdisho lagu keenay hadda والله أنا بوساسو إن بدنا اللي يجوا هاي marka xabadii ku dhacday aniga dad si fiican wax uga qabtay ma jiraan dawladdu waxba kama qaban inkastoo ninku nin dawladda ka tirsan buu ahaa dawladdu wax ka qabato way ahayd bas waxba kama qaban dawladda iman aniga way yimaadeen waa jiraan laakiin waxay ka qabteen haba yaraatay ma jiro marka aniga markuu namriga u dhacay waxaa dareemayay in meesha camal Soomaali inaysan dadba ahayn ayaa awaaday aniga macnaheedu waxay qabaneen haba yaraatay ma jiro marka aniga baadi caafimaadkayga waxba ku sirrin waayay intana la keenay marka hadda waa fiicanay ma sha Allah waxaan ku bixinayaa in macnihii aniga taa way u dhacday alxamdulillah ilaahay baan ii qoray wax dhibaataan oo ma arko balse waxaan ka falaqeen gabdhaha soo socda Soomaaliyeed inaysan ku dhicin ayaan loo digayaa haddii ku dhacdana dawlad ma jirto siiyo Puntland dawlad ma jirto qofka haddii wax ku dhacana wax loo qabanay haba yaraatay ma jirto waxaad ii sheegtay hadday ninku inuu ahaa nin telefoon aad iska maqli jirteen dabadeetana uu ku yimi oo gaari isagoo wata ku yimi bal arrinka wax yar oo faalla walaashayga bi adiga raaliga aniga ninka wala sheegaysan jiray waliba in barismaan aqoon wax yar ba isnaqaanay oo ii yimi ana guriga joogay soo gaarigiisa wata wuxuu dhahay iisoo waa sheekaysanana waxaan ku iri abuu macaan aniga kasoo degay gaariga ma ani wax yar baa kula sheekaysanaya daqiiqada kula sheekaysanaya marka gaariga daaqada wuxuu dhibay wila carrayba marka aan magaalada xoogaa ka yara wax ka ii wadaa saa u lahaa ani markuu meel geeyay inuu kufsado damcay waa la dagaalamay markaan la dagaalamay xabadii ugu dhuftay aniga markuu xabadii ugu dhuftay waa carray isagii xabad xagee bay kaaga dhacday wala xindoo sidee kaga dhacday marka dad shacab oo reer Puntland oo arrinka ka dhiidhinayo ku yimi ma jiraan waxa ka weeraatay ku yimi jiraan ani way yimaadeen dad iska shacab oo de ka naxay waa jiraan laakiin aniga macnaheedu waxa dawladda haweeraatay ka naxday ii timi jiraan maxaa dareentay markaad aragtay adigoo magaalo Soomaaliyeed jooga oo dhibtaas kugu dhacday wax kugu damqanayana aan haysan ani waxaan dareemay Soomaali inaysan joogitaan lahayn dawladna isma jirin baan dareemay Boosaaso waxaad ii sheegtay inaad 2 bilood joogtay ha ani garow waa ku soo xoogaa joogay ilaa 3 sano garow joogay Boosaaso 2 bilood baa joogay marka boosas fiican ma kala aqoon ba wax yar baa joogay sax okay ka hor Boosaaso magaalada baad ka timi garow yahay soo ani ka hor waxaa ka yimi gobolka Wardheer degmo hoos timaada oo la dhaho Qararo sax baadi garow inaad hooyo iyo la joogtay aad buu la joogtay aniga tuuladaas joogay markii hore waa ka yimi hooyo xaggaas deganay adeer baan la joogay guri adeer waa ka soo tagay boosa anoo sida ka laabatay waxay ku dhaceen sida ku dhacday magaalada adeer ku timi magaalada ay intaan boosayma adeer garow joogay la joogay ani boosa 2 bilood bas baan joogay anoo sida ka laabatay naqsada ku dhacday wax yar joogay markaa
adeer marka xaajada tan iyo xaalada tan dhacday wuu la socdaa Soomaa wuu la socdaa marka habeenkii la wacay subaxii uu yimi isaga ka waran imika reer Puntland nabad iyo nolol bay doonayaan adoo dulmiga inta leeg lagu geystay Puntland nabaduna waxay ku timaadaa iyo nolosha dadka masaakiinta ah iyo hablaha la daryeelo dhib iyo cumaan iyo colaadna laga ilaasho maxaad ugu baaqaysaa adigoo fariin ahaan u diraya madaxda iyo isimada Puntland amnigooda iyo noloshoodana u tilmaamaya inay ku jirto dadka maganta ah oo la daryeelo maxaad u tilmaamaysaa waxa u tilmaamaya ani tan way ugu dhacday balse inay ka feejignoodaan teeda kale aniga qof wax igu sameeyay qof shacab maaha in askari ay igu sameeyay askarina dalka wax inuu wuxuu qabto ayaa diriiska loogu xiray diriiska laguma xirin baaskoodana laguma dhiibin inuu qof bilaadana ku dhufto marka ani dawladda eedeynaya in intii baaskood ninkaas waxa kugu anina marka askari lagu dhufto shacabka iyo nolosha dadka ilaalin lahaa ninka dawladda amniga dadka ilaalin lahaa yani adigu handadaay marka dawladda ana waxa ka codsanayaa dadka inay isaga soo dhiibayaan qoryaha dawladda baan siin jirin anin baaskoodada u soo dhiiban baaskoodada dadku difaac baa la yiri gabar Soomaaliyeed ku dhufa laguma dhihin صح marka aniga tan ugu dhacday balse waxaan ka inay iyagu amnigooda adkeeyaan Soomaaliya si joogitaan lahayn ee sidaas u dhaamaan ayaan ugu baaqayaan walaashay xaaladda dhacday waa xaalad xun ibtiladana waxa geystay ninkii shacabka ilaalin lahaa matari lahaa ee amnigooda iyo noloshooda ilaalin lahaa markii deegaankaagii iyo dalkaagii xumada iyo xanuunka aad ku dareento dan waxaan filayaa inaadan dal shisheeyana aadan nabad iyo nolol ku dareenteen haddii ahaato Liibiya haddii ahaato qurba kale haddii ahaato Yaman sababtoo ah meesha dhibtaas iyo ibtiladaas kugu soo gaadhay waa deegaankaagii waa dalkaagii dadka ka dhiidhii waayay oo dhibaatada ka hadli waayana waa u sheegaya iminkana way gaari doontaa insha Allah fariintaas madaxda iyo isimada iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka oo garanaysa reer Puntland ibtila idin ka habsanaysa gabadha xaqeedii hadii la siin waayo amniga iyo nolosha iyo nimcada Puntland tal wallahi alladhi la ilaha ghayruhu wallahi mayso hadii ximaarka loo soo qaban waayay gabadha oo maxkamad la soo saari waayo wallahi baan nabad iyo nolol u jireen bank nabadda la sheegay ilaahay wuxuu idin ku siiyay wax kale ma aha waa dadka masaakiinta ah oo xaqooda la siiyo dumarku inay ka badbaada inagoo isqabana weeyaan gabaratan ibtilad markay ku dhacday boosaasi ahayd meesha kaga dhacday xaaladeedana waa laga aamusay oo laga gaabsaday wax ka hadlayna ma jiraan aniga walaashay boosaasan ka iibay arrinkaagana wallahi billahi tallahi baan uga seexan ilaa xalay waan soo jeeday Samira aan wada hadalnay wax la qaadanaya ma malaayiin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed reer Boosaaso ah sidaas uga dhiidhiyaan dantayada ku jirta inaanu ka dhiidhino caruurteeda noo badbaadaysa hooyooyinkeeda noo badbaadaya idinka noo badbaadaya ma hadii waxa aanu daawano aan ka dhiidhiyaan ceebta iyo xaaladda xun la sameeyay aan u qoslo ka aamusno farxadii nolol iyo liibaan nooma tal annagu ilaahayna ka baqayna lafahayagana u baqayna arrinka waxaanu leenahay waa in la soo qabtaa ximaarka gabadha godobta ka galay waa in la soo qabtaa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu Puntland waa ololeysa